kumanaan qof oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa axadii ku dibadbaxay magaalada ugu weyn Baakistaan ee Karachi iyagoo dalbanaya in xilka uu ka tago ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imraan Khan. Waxay ku eedeynayaan inay xukunka keensadeen militariga isla markaana doorashadii lagu doortay 2 sano ka hor ay ahayd mid lagu shubtay. Banaanbaxa Karachi ayaa ah kii labaad ee dhaca muddo 3 maalmood gudahooda, waxaana abaabulkiisa isbaahaysi ay ku midoobeen 9 xisbi oo mucaarad ah kaas oo la baxay dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Pakistan Democratic Movement. Ololaha ka dhanka ah Khan ayaa imanaya iyadoo Pakistan ay wajahayso dhaqaale xumo aad u daran oo xitaa dhaqaalaha dalka uu hoos u dhacay kahor inta aanu caalamka ka dilaacin cudurka coronavirus kaas oo xaaladda ka sii daray. Waxaa dadka ka dhacday shaqooyinkii, waxaa dadka ka dhufsatay raashinkii ay maalinkii heli jireen 2 jeer oo kaliya. Waxaa sidaas tiri Maryam Nawaz oo ah gabadhii ra'iisul wasaarihii 3 xilli ee Pakistan Nawaz Sharif oo la hadashay dibadbaxayaasha. saacadii hore ee Isniinta shalay booliska ayaa xiray saygeeda Mohammed Safdar kadib cabasho ka timid xisbiga Khan Tahriik Insaaf. Boolisku waxay soo jabiyeen daaqada hoteelka aan ka deganahay Karachi waxayna xireen Safdar ayay Maryam ku tiro qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka. Ra'iisul wasaare Imraan Khan si kulul ayuu u beeniyay in militariga ay ka caawiyeen inuu ku guuleysto doorashada. Militariga weli kama aysan hadlin eedeynta loo jeediyay. Doorashada guud ee Pakistan ayaa waxay dhacaysaa sanadka 2023 hase yeeshee macada halka ay xaaladda dalku ay ku dambeyn doonto haddii aysan u sii socdaan dibadbaxayaashu. Sakariya Cabdi Shafaarax, Sakariya Saxane.